anigoo ahaa musharax Saciid Cabdisamed Curay noqdayna xildhibaan kana soo baxay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa una tartamay jagada meeyarnimo kana tartamay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee Ucud maanta oo Jimco ah waxaan halkan ku cadaynayaa in aan u tanaasulay walaalkay Cabdikariin Axmed Mooge waxa kale oo doonaya inaan sheego dad fara badan oo ay ku jiraan niman fara badan oo ay ku jiraan niman aan midida daabkeeda haynin inay waxyaabo fara badan iska lahaayeen halkan waxa taagan 9 nin oo ka soo baxay golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa oo 9 ay taageersan yihiin Cabdikariin Axmed Mooge waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay Cabdikariin xilka ku asturo walaalkii waxaan uga mahadnaqayaa waan ogahay inuu dahan lahaa waan ogahay inuu doonayay inuu soo sharxo maayirka caasimadda Hargeysa waan ogahay in xisbiga u cudna ay markaa ku taageerayeen inayna sharaxaan oo ay maalmada u sharaxaan walaalkii inuu geesinimo la yimaado hankiisi iyo caburiyo iyo tanaasulo aad ayaan maartay ugu mahadnaqayaa walaalkii waan u ducaynayaa hawl buda naga furtay ummadda Soomaaliland doorasho gashay doorashada ay gashay wayna midaysay doorasho wanaagsan oo qiimo leh oo mataqaana asxaabtu kulmiye wadan iyo Ucudba ay waqti badan ku bixiyeen doorashada noo qabsoontaa ayaa la galay way ina midaysay in xildhibaanadu ay maartay codka inta badan ee aqlabiyada ay maartay rag badan oo iga mudan baa ayaa ku jira golaha soo baxay 17 mudane ee soo baxay dadkaasi qof kasto aniga taageeraday waxa weeye isagoo xaq u lahaa isagoo mudna haddana shacabkiisa uu jecel yahay buu tanaasulaya waxaan kaga leeyahay ma jirin marka walaalkay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waan u ducaynayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala horta maanta go'aankeenan ha ka yeelo go'aan khayr qabo hirgala oo dadka loo tanaasulina ay ku faa'iidaan ilaahay ka yeelo waxaan aad iyo aad horta u mahadnaqayaa Saciid oo tacab badan geliyay halkaas xisbigana in badan ku jiray wadooyinka istaagay sida Yurub codkaysiya yiri kursigan horta meeyarka sida madaxweynayaasha looma doorto ee xisbiga ka soo baxa madaxweynayaasha ayuu baa loo doortaa public loo doortaa asxaabta ayaa soo saarta qofka noqonaya meeyarka iyo meeyar xigeenka Cabdikariin Axmed Mooge anigu aabihii baan mar iskuulka la wada qoray ilaahu naxariiste ilaahay uu noqon saaxiibna ahayn ilaahu naxariiste waxaan waa inankaygi ayuu taagan yahay saaxiibna waan ahayn aad iyo aad inta imku ordiyo activist ahana waxa dhowr meelood oo xafladood ayaan ka taageeray oo markaan arkay inuu programkiisa wato aan ilaa program baan la imay ilaahay kaygo kale yaanu ka dhigin marka wiga nasiibato dadkii yaryaraayo marka qaan gaaray oo mustaqbal u baahan ay si barxadba ku soo beegmeen halkaana idii la gashayo waxaan siin maraba hashi laga baxay markaaga afraad daalayra adna jikoor ba dhigi doonta insha Allah taala insha Allah marka waa idii la iibi gali kursigan horta kursi cudbo ahayd warame anaga iyo wadani horaan u heshiina Cabdikariin oo ahayn magaran saaye wadani ahayn waliba aniga ii dhow markaa ayaan ku heshiinay iyaguna qaataan speakerka ana aan meeyarka Hargeysa qaato saasan ku heshiin labada xisbi duulimaan cid kuma ahayn waxaan aragnay dalkii uu ka baabacay check and balance iyo separation of power oo gacan qura wax isku yimi si aan dadka u badbaadino si aan bariga u badbaadino anaga kulmiyaba 2005 wax inagu cusub maaha ayaan wuxuu sameeyay waxaan doonay insha Allah ta'ala saddex xusbi iyo madaxtooyada wada shaqeeyaan doorashada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan wadaag ku galay oo waliba madaxweynuhu ku amaanan yahay
lacagtii oo dhan boqolkiiba 75 bixiyey halkan 25 ka bixinay oo untigiisa legacy u geliso inaynu hagaajino dalku dhaqaaqo ay horta u sameeyna madaxweyne iyo mayorna wax soo dhaxgala adduunka imanka Ingiriiska Johnson waxa weeye oo conservative-ka mayorka waxa weeye Labour-ka qaan madaxweyne waxa ka wakiila barasaabka waxa uu leeyahay soo magacaabo waxa horta wasiiradiisu oo ordaan oo lacag la ordaan kharashkii baan ku celinayaa tolaay marada isaar horta madaxweyne arintaasi adiga ma socoto waxa ka socota malamaya wasiiradaade horta arinta inaga qabo foolxumayno keenaysaa haddaba si aan dalkeenu halka ka qaado waxaan ana go'aamiyay oo anoo xusbi ka wakiila tanaasulka isku tanaasuleen labadii xildhibaan soo baxay laba xus ka soo baxay annaga waan ku ducaynayaa haddaan rahay insha Allah waxaan sheegnaa madaxweynuhu awood u leeyahay inuu waanu mahadsan yahay inuu arkay inuu de sharci meeshi jiro oo ila warda sharcigi ayaan isku ogaanay uu ku mahadsan yahay inuu sharci inuu ilaaliyo laana waxay asxaabay ka soo baxeen asxaabta kulliye sameeynaysa ay ka sameeyay ima kana ma ku ka soo dagay insha Allah taala hadda ka soo dagay magaaladeena iyo dalkeenuba isbedel buu baahay codka shacbiga waa in la ixtiraama codka shacbiga dadka uu hadlay shacbiga uu hadlay labada xusbi bay maanta si aqlabiyadii gudoomiye ku xigeenka anaga la naga sugaya ya aad xigeenkiina aad la naga sugaya waanu la joogaa insha Allah taala de markaas dooransan ay isna foodka siin doontaa way isku xidhan insha Allah taala aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiyuhu Faysal Waraabi waxa weeyaan muwaadin weyn oo mar waa odageeni mar gudoomiyaha xisbiga oo marna waa ilaaliyaha qaranka danaha qaranku inta badan ka hadlaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha inuu maartay soodaynimo leh wanaaga oo qiimo leh inuu maartay walaalkiisa inay tanaasulo gudoomiyuhuna ducada uu noo raaciyo go'aanka xisbigana markaa uu ku laro marka aad iyo aad baan xisbiga maartay ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha aad baan mahadsan tahay horanayna kaaga waan ku jeclaan kula shaqeyn jiray imakana ixtiraam saayida umba ku sii kordhayay abaal ilaahay idinkiina ilaahay wuxuu nagu guuleyn doonaa inaanu taariikh ka tagno idina taariikhdaas unba qayb ka noqonaysaan insha Allah taala doorashada waxaan ilaahay ka baryaa in 17 nin markay imka daanu Hargeysa maamulayno asxaabta waxa ka horeysa inaan ummadda midayno ummadda qaar baa asxaabta ku jira qaar baan ku jirin marka shaqo weyn baa noo taala in ay dadku nagu ilaalisaan midnimada dhexdeeda anaguna runtii shaqada nalaga filayo inaanu qabano marka gudoomiye aad iyo aad baa mahadsan tahay ducada noo ducaysay waa gudoonay adigana waa ku ducaynaynaa khayr Allah ku siiyo